1400 oo qoys oo ka kooban agoomo naafo iyo danyar ku nool afarta xaafada ee Beledweyne ay ka kooban tahay ayaa ka faa'iideystay maanta deeq raashin ah oo ka timid markaska bin Salmaan. qoys walba ayaa qaatay raashin ka kooban bur, bariis, sokor, saliid, timir iyo qudaar si ay afur uga dhigtaan. raashinkan ka yimid markaska bin Salmaan waxaa kormeeraya raashinkaasi ururka iskaashiga islaamka waxaana fuliyay hay'adda maxalliga ah ee waad. maamulka degmada Beledweyne oo deeqda raashinka ah si habsami leh cadaaladna laga dheehan karay ugu qaybiyay qoysaska ka kooban agoomaha naafada iyo danyarta xaafadaha Beledweyne ku nool ayaa goobjoog ahaa ilaa iyo raashinka qaybinteeda uu jawi degan uu ku dhammaado. gudoomiyaha degmada Beledweyne mudane Maxamed Axmed Food Cade, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Beledweyne mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen iyo madaxa gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka gobolka Hiiraan Xaawo Axmed Maxamed oo dhammaantood ka hadlay munaasabada raashinka lagu qaybinaya ayaa kaga mahad celiyay dowladda Sacuudi Carabiya deeqda raashinka ah oo ay soo gaarsiisay dadka danyarta ah ee Beledweyne ku nool. qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iiday halkaan maanta waxaan ku qaybinaynay deeq raashin ah oo tiradooda gaarayso 1400 oo timir leh oo saliid leh oo baasta leh oo bariis leh oo sokor leh ayaan la soo gaarsiiyay si wanaagsan ayaa loo qaybiyay waatan halkaan taalla ummadii looga tala galay sidii la rabay loo gaarsiiyay ma garan deeqdaas waxaa bixiyay markas bin Salmaan USS boqortooyada Sacuudiga oo u mahad celinaynaa aad iyo aad ay u mahadsan yihiin deeqdan aynu soo gaarsiiyeen oo raashinka ah aadan ugu mahad celinaynaa hadda kow ma aha waa soo gaarsiin jireen ramadaanka say noo keenaan Beledweyne waxay ka qabteen wax aad iyo aad u fara badan waxay ka sameeyeen caafimaad waxay ka sameeyeen ceelal fara badan ay ka qodeen shaqadooda hadda kow ma aha markasta aynu soo booqdaan ay wax u qabtaan reer Beledweyne waa mahadsan yihiin leenahay. runtii maanta waxa aan qaybinayno waa raashinkaas mamlakada Sacuudiyada Carabiya ama dawladda Sacuudiga ay ugu kaalmaysay shacabka reer Beledweyne runtii waa waxaan ka sugaynay waa wax awalkii horeba aan runtii naloo keeni jiray waxaan leenahay waa mahadsantaan leenahay shacabka reer Beledweyne waxaan leenahay maaragtay ii sheegay waxay mar walba ay rabaan in la kaalmeeyo kaalmadana waa kaalmo hore u socotay waa idinkaga mahad celinaynaa kaalmadan mar walba socota anigoo ku hadlaya magaca maamulka Beledweyne gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Beledweyne waan ugu mahad celinaynaa raashinkan qiimaha badan sonkorta burka saliidda baastada nooc kasta raashin uu ka kooban yahay waan ugu mahad celinayaa dowladda Sacuudi Carabiya. marxiin magacaygu waxaa Axmed Maxamed waxaan ahay madaxa samafalka maareynta musiibooyinka gobolka Hiiraan maanta halkan aan joogno waa magaalada Beledweyne waxaa lagu bixinayaa oo yaala deeq dhan 1400 oo ka timid OIC iyo markis Salmaan maasha Allah waa xilligii ay mudneed dadka Beledweyne waxay ku sugan yihiin dhibaato aad weyn oo aan la soo qiyaasi karin waa xilli ay u baahnaayeen maanta waxaan dhihi lahaa mar walba codsiga in ay noogu soo celceliyaan aysan fiirsan oo kaliya bisha Ramadaan. qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iideystay raashinka ka yimid boqortooyada Sacuudiga ayaa ku amaanay maamulka degmada Beledweyne sida cadaaladda leh ee raashinka ay ugu qaybiyeen shacabka Beledweyne. si mahadsan oo wanaagsan maamo 114 waa ku salaama ummadii keentayna waa uga mahad celinaa raashinkaas ka yimid dowladda Sacuudiga inayna soo kalkaaliyeen ayaan hubaa naafanahay cuuryaanaanahay cuuryaan kalena waa ay hoos taallaa. waa gartay maxaa raashin oo maanta qaadatay noo sharax. waxaan qaatay loor haaf sokor haaf bariid haaf bura kartoon baasta digir iyo timir intaas saliid aan qaatay mahaddaasna waa idin mahad celiyey. waxaan ku faraxsanahay maadaama soon ay tahay aadaan ugu faraxsanahay inaan helno raashinkii noogu deeqdii Sacuudiga alxamdulillah shukr rabbil caalamiin غير iyo bishaaraan leenahay waan ku faraxsanahay alxamdulillah shukr rabbil caalamiin aad ayay nooga jabnaaday Ramadaanku uu nagu adkaay saas awgeed ay nagu siiyaan
na tabarucaadeen na taageereen garab istaageen boonadoodiina aan midigta ku hayno alxamdulillah shukr rabbil caalamiin ana ilmo agoon ayaan haystaa alxamdulillah shukr rabbil caalamiin kii noo soo adeegay ilaahay u soo adeegaan leenahay raashinka waa timir waa saliid waa baasto waa digir fuud liiraa waa bur waa baasto waa sokor ما شاء الله ما anigoo ah Cabdiyaala Cabdullaahi Maxamed waxaa la siiyay bur iyo bariis iyo timir iyo saliid dawladda Sacuudi Carabiga waa mahadsan tahay walaalo jiro Sacuudiga raashin macaan oo tagay soonka dabadiisa tobanka dabo oo ugu qeyb badan ay siiyay raashin bariis iyo bur iyo sokor iyo timir iyo baasto iyo waliba yaanyo waa maasiin Sacuudiga boqortooyada Sacuudi Carabiga boqor Salmaan aad ayuu maasiyaa anigoo gaar gacan la oo ku nool gobolka Hiiraan ayuu isii raashinkaasi dawladda Sacuudiga waana soo gaaray marka saas waa ku mahadsantiin dawladda Sacuudiga iyo dadka ka qayb qaatayba wakiilada ka kala socday markaska bin Salmaan qaybtiisa Soomaaliya iyo hay'adda waad oo la hadlay warbaahinta ayaa dhankooda sheegay in wax badan ay ka bedeli doonto nolosha 1400 ee qoys ee maanta ka faa'iideystay raashinka ka yimid boqortooyada Sacuudi Carabiga hadlaya magaca markaska bin Salmaan liqaatu al-a'maal al-insaaniya qaybtiisa Soomaaliya waxa farxad weyn oo ah inaan keeno degmada Beledweyne gargaar ku aadan bisha Ramadaan afurinteeda kaasoo ka kooban 9 qaybood bur bariis iyo sokor min 20 ah 10 kiilo oo baasta ah digir 8 kilogram ah 6 kiilo oo timir ah iyo 6 litir oo ah saliida sidacday waxaan looga talagalay dadka masaakiinta ee muxtaajiinta oo baahan si ay ugu afuraan inkastoo aan ka soo dib dhacnay waqtigii ugu talagalay maanta oo Ramadaan ay tahay 28 bisha Ramadaan waxa aad noogu farxad ah in aan anagoo kaashanayna gobolka iyo IOC inaan deeqdan soo gaarsiino tan oo ah tii ugu dambeysay ama qaybtii ugu dambeysay gunaanadka mashruucan 35,000 ah ee laga fuliyay Soomaaliya oo dhan maanta oo taariikhdu tahay 28 Ramadaan 1440 waxaa markas Malik Salmaan uu soo gaarsiiyay 1400 oo qoys oo dadka Ramadaanka loogu talagalay waxaa kormeerayay ururka iskaashiga islaamka ama munadamada tacaawun islaami waxaa fulinayay hay'adda maxalliga ah ee WAD ama WARD waxaan isleenahay 1400 waxay wax ka tari doontaa dadkii afurkoodii waxay ka kooban tahay 7 shay oo aan isleenahay sokor iyo bariis iyo bur iyo baasto iyo digir iyo saliid iyo timir intaba waxaan isleenahay waxay anfici doontaa dadka reer Beledweyne dadka tabaalaysan waxaana la jooga gudoomiyaha degmada kii maamulka gobolka iyo heer degmo iyo heer gobolba wayna la joogaan wayna la qaybinayaan waxaana la jooga sidoo kale markas bin Salmaan wakiilkiisi oo hawshan u soo wakiishaan waxaa kaloo nala jooga ururka iskaashiga islaamka ama munadamada tacaawun islaami wakiilkeedii anigoo hay'adda fulihaysay ee waadna waxa waaye dadkii aan fulinteedii ayaan soo gaarsiinay ayaguna waa kormeerayaan gudoomiyaha degmadana waa kana hawsha iyo qaabka ay dadku uga faa'iideystaan ayuu asaguna waxa dabagal ku yahay sida cadaaladda leh ee maanta deeqda raashinka ah ee ka timid markaska bin Salmaan gudoomiyaha degmada Beledweyne mudane Maxamed Axmed Food Caday iyo maamulkiisa heer degmo ay ugu qaybiyeen qoysaska ka kooban agoomaha naafada danyarta ee ku nool afarta xaafad ee Beledweyne ayaa tusaale wanaagsan u ah maamulka gobolka Hiiraan iyo kan kale ee ka arrimiya degmooyinka uu gobolka Hiiraan ka kooban yahay waxaana xusid mudan intii ay socotay bixinta deeqda gargaarka ah in ciidanka amniga ee ka kooban booliska nabad sugidda iyo militariga ay si aad u adkeeyeen amniga baar xasan dhiif oo ahayd madasha raashin qaybinta ay maanta ka dhacday maxamed ibraahim siyaad TV-ga caalamiga ah ee Hiiraan Bile Beledweyne